الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدنى السلام يا جماعة شعبوينا جمهورية الصوماليلاند. وحوي halkan waxaan ku shaacinayaa halkayga xildhibaanimo oo ah insha Allah ta'ala hadii Ilaahayna gaarsiiyo doorashada 2026 golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland lagu dooranayo markan doonayo xildhibaan baarlamaan muxuu qabtaa maxaa waajiba saaran duties ama obligations ay xildhibaanadu qabanayaan maxaa isaga waajibahan loogu leeyahay muxuu qabanayaa muxuu ummadda u soo gudbinayaa muxuu matalayaa xildhibaan weeye marka hore xildhibaan baa qofkan xilku dhibayahay marka waxa weeye kow xildhibaanada maanta jooga kow waxay ka gaabiyeen ragga qaar ilaa imaka inay deegaanadii laga soo doortay ay ku noqdaan ama ay baahiyahooda ka turjumaan kow talabaad tirada xeerarka ay sameeyeen oo badnaa waliba xeerar baarlamaanka hore ay sameeyeen oo ay diyaariyeen iyaguna ay wax ka bedeliya kaabid ku sameeyeen tirada xeerarkaas xildhibaanadii hore ay ka tageen waxa laga hayaa ilaa imaka 20 xeer ayaa ka baxay oo waliba ahaa xeerar badan oo kaabis wax ka bedel lagu sameeyay laba xeerarka ay hindiseen ilaa imaka xildhibaanadani 4 ilaa 5 ma gaarayaan tastaxaad inay yahiin dad suuqa laga xaadiriyo badankoodu ama koorumku buuxsami waayo marka uu koorumku buuxsami waayana waxay sababaysaa inuu de kalfadhiga furmi waayo ama de maalinta ajendiha ay lahaayeen ay bartaa ku baaqdo ama xeer haddaba shaqada koobaad xildhibaanku waxa weeye kow ilaa imaka wax dhacdo xildhibaanada qaar deegaanada laga soo doortay kuma noqon matalaadaba marka lagu leeyahay waa in qofku dadkiisa iyo deegaankiisa la duruuf noqdaa oo baahiyahooda dhabtaa ka turjuma ama xildhibaanku markuu MP of Parliament ama Member of Parliament markuu yahay shacbiga Soomaaliland oo dhan wuxuu ku matalaa wixii xeerarka qaranku leeyahay oo ah dhammaan baahiyaha asaasiga nolosha bulshada saameynaya hadday tahay waxbarashada caafimaadka horumarka cuntada dhammaan inta daruuriyaadka qofka ah oo in xildhibaanku ku matalaa waxa weeye taas marka qofku inuu deegaankiisa ku noqdaa oo baahiyihiisa ka turjuma waxa weeye tastaxab xeerarka dalka waan idin sheegnay waxbarashada Soomaaliland maanta dhammaan bulshada Soomaaliland oo dhan waxay u baahi qabtaa in xeerarka ay hesho nolosha ku saabsanaa kow waxa ka mid ah xeerkan maskaxeedka ama asadka fikriga dalku ma laha ama property-ga qofka in loo sameeyo xeer maskaxeedkaas qofku wuxuu waajibinayaa qofku inuu copyright ka helo in xuquuqda uu soo saaro helo in qofku wixiisii uu wax ku helo ama loo ogaado ayuu xeerka sameeyaa kow xeerarka ugu muhiimsan waxa ka mid ah caafimaadkeena wali xeer ma laha haddaan ma ka socon waxa ka mid ah waxbarashada maanta dugsiyada sare ee jamhuuriyadda Soomaaliya ku yaala siibahan magaalada deegaanka Hargeysa jaamacada iyo sekondariyadu way isleeyihiin xeerka tayada waxbarashada meesha ka baxaya waxa muhiim ah in xeerka waxbarashada la helo oo ka turjumaya in ay ummaddu noqoto dad muntafic inay u soo baxaan heerar xagga waxbarashada taasoo ummad waliba inta qof ay waxbartay ay soo saarto ayuu horumarkeedii nolosheedu inuu wanaagsanaado ku xidhan yahay sidaas la mid ah waxaan ka codsanayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay codkooda siiyaan anoo ka turjumaya baahiyahooda mar walba taagan waxay muwaadin